bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warka fiidnimo ee Ramaal Media qodobada ugu door karoon ay warkaasi aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa shaacisay in qofkii ugu horeeyay ee qaba cudurka coronavirus ay ku hayaan magaalada Muqdisho waxa ay sheegtay in muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibadiisa ay maalmahan ku hayeen garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan magaalada Muqdisho si baaritaan ugu sameeyaan kana digtoonaadaan isla markaana ay karantiileen waxay sheegtay in maalmo kadib lagu soo wargeliyay in dadkaasi garoonka ay ku hayaan laga helay cudurka coronavirus isla markaana wali wasaaradda caafimaadka ay baaritaano kale ay ku hayso dadka garoonka lagu hayo taliyaha ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirar ayaa hogaaminaya howlgal maanta ciidanku kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo al-shabaab u ahaa saldhig muhiim u ah oo ay ka abaabulaan ficilada qaadaan ciidamada Soomaaliya wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeenta dowladda Puntland ayaa wada maalintii toddobaad shaqada qorshaha naqshadeynta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kaas oo socon doona muddo qorshaha naqshadeynta ayaa noqon doona mid casri ah oo ka duwan naqshadihii hore ee magaalooyinka loo sameyn jiray daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii dibadda ee Ramaal ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dalkiisa laga helay 5 qof oo qaba cudurka coronavirus waxa uu amar ku bixiyay in la xiro goobaha waxbarashada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan isagoo u qoondeeyay shacabkiisa saabuunta alkoolada iyo marada wajiga lagu xirto si loola dagaalamo caabuqa coronavirus oo si xawli ah ku fidaya warka fiidnimo ee Ramaal Media waa naga intaas warkan warka xiga intaan ku kulmi doono saaxiibayaal aniga Axmed Cabdullaahi Jaamac oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo